بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله. أما بعد، فيا إخواني في الله، waxaan ku jirnaa oo bilow noo ah bisha Ramadaan ee fadiilka ah ee Ilaahay muslimiinta uu ku farad yeelay. Marka waa bil khayraad, mar walbana waa la isku baraarujiyaa, lagamana noogo isku baraarujinteeda ahmiyadeeda iyo waxyaalaha ay u leedahay qofka muslimka ah lagama daalo. walidaalka waxaan rabaa insha Allah hadduu Ilaahay yiraahdo anna inaan la wadaago ahbaabta muslimiinta, inaan la wadaago oo Soomaalida ah in qaybaha Ramadaanka fadaa'ishiisa iyo ahkaamtiisa iyo waxyaalo fara badan aad baa looga hadlaa. laakiin waxaan isleeyahay iyadana waxaa muhiim ah, dadka mararka qaarkood waxay aad wareer oga galaan ama ay si fiican macnaha waxa weeye hadafkii Ramadaan laga lahaa iyo ujeedkiisii aanan xooga la saarin, oo mararka qaarkood waxyaalaha Ramadaanka buriya oo aad loo farabadiyo muhiimadana lagu soo aruuriyo kaliya cuntada iyo soonka iyo waxyaalaha ka burinayo iyo intaas iyo waxyaalaha in uu qofka ka joogsado ay tahay. marka waxaan jeclahay kalimaad yar yar oo kooban intuu Ilaahay naga gaarsiiyo oo yani inaan la wadaago oo ah ku saabsan yani xikmadda soonka, ahkaamta waaweyn ee asaasiga ah iyo waxyaalaha yani burinaya soonka ugu muhiimsan, iyo qadaayaadka ama masaa'isha mucaasirka ah ee waqtigan hadda joogo oo si kooban looga hadlo, oo iyo macaanida aan ka kordhisan karno bishan Ramadaan marka la soomo oo qofka uu soomo oo laga kordhisan karo. sababta oo quraanka Ilaahay wuxuu ku oranayaa yaa ayyuhalladina aamanu kutiba calaykumus siyaama kama kutiba cala alladina min qablikum la'allakum tattaquun. aayadda waxay tilmaamaysaa in ujeedka laga rabo inay tahay taqwo Ilaahay inuu xasilo oo qofkii naftiisa ay ku degto, mujtamaca muslimkana ay wada galaan waxa la yiraahdaa cabsi Ilaahay ay si camali ah ay u dabaqaan. marka maadaama ay ujeedku ay tahay taqwada, soonka Ramadaanna fadaa'il badan uu ku soo arooray, culumadana ay aad uga hadashay oo maalin walbaba idaacadaha iyo meel walbaba laga sheego yani soonka inuu yahay bilaha Ilaahay bilaha ugu barakada badan, waa bilaha qofka yani waxa ku jirta laylatun oo khayru min alf shahr sida quraanka uu tilmaamayo, suuratul inna anzal lagu tilmaamayo yani oo kun bilood ka khayr badan. marka bishaas ma habeenka ayaa ku jira shahru ramadaan alladhi unzila fihi alquran hudan linnaas wa bayinatin min alhuda walfurqan. waa bisha Ramadaan, waa bishii Ilaahay quraankan uu soo dejiyay. marka yani fadli waxa ugu filan inuu quraankan uu bishii Ilaahay uu soo dejiyay ay tahay. waa bisha qofka laga rabo inuu ka soomo shahwatul batni wal farj, يعني إنه كسوم وحولبا فرجيجا إيو عنتادا إيو عبيتانكا إيو وحولبا مباحة أو أها مباحات كأها، إنه كسوم طلوع الفجر لقب اللابو فجر الصادقة إلى غروب الشمس، إنه كسوم لقربه وي. marka Ramadaanku wuxuu ka mid yahay shanta tiir ee islaamka ee tilmaamaysay waxyaalaha cibaadada qofka muslimka ee waajibka ku ah oo aanan ahayn waa faraa'ida islaamka ayuu ka mid yahay. marka in qofku inuu si xoogan uu ugu dadaalo sida looga rabo shahaadateynka, looga rabo salaada, ayuu noqonayaa rukniga saddexaad ayuu noqonayaa. marka kadibna waxa weeye xajkii iyo yaa laga rabaa oo mataqaana yani oo yani ah. marka haddii zakadii iyo xajkii iyo kolka la wada fiiriyo cibaadaadka Ilaahay ee shanta ah, marka yani ama arkaanta islaamka ee shanta ah, waxa weeye waxaa jira kuwa tawxiidka marka laga reebo afartan kale
waa cibaadaad oo qofka uu samaynayo. cibaadaadka ayaa waxay u kala baxaan cibaadaad badani ah iyo kuwa mataqaanaa aan badani ahayn. kuwa cibaadaadka oo badaniga ah waxaa ka mid ah salaada iyo soonka, alcibaadaat albadaniya ayaa lagu tilmaamaa. waxaa kaloo jira cibaadaad maaliya, qofka cibaadaad uu maalkiisa uu ka gudaayo waa zakada weeye, waa cibaadaat almaaliya. waxaa jira waa cibaadaad oo labadaba kulminaya sida xajka ama cumrada iyo wixii la mida, waa cibaadaad maalkii iyo yacni way wada kulminayaan, oo maxaa weeye iyo badankiiba intaba way kulminayaan. laakiin si kale kolka loo fiiriyo cibaadaadka bisha soonku wuxuu uga duwan yahay cibaadaadka kale, waa ficli, waa waxyaalo la fulinayo marka shahaadateynka laga reebo, la fulinayo, ha noqdo salaada, zakada oo la bixiyo, xajka oo la imaado, waa wax ficil ah ayay yihiin. laakiin soonku waa mid yacni cibaadaad tarki ama kafi, waa wax aad ka reebtoomaysid, waa ka joogis iyo ka reebtoomid. walidaalika luqadda carabiga soomka sidiisaba waxaa weeye waa yacni ka reebtoomid, waa waxa shayga kolka uu ka reebtoomo. sidii aayadda tilmaamaysay innii nadartu lilraxmaani sawman falan ukalima alyawma insiya. maanta waxay tiri yacni waxay tiri maryama maanta anigu waxa aan ku nadray soom calayha salaam, waxay tiri waxaan ku nadray soom oo falan ukalima alyawma insiya. maanta qof bini aadana oon la hadlahayo ma jiro. marka waxaa weye waxa ku soonka waxaan ka reebtoomay oon iska dhaafay hadal oo nadar aan ku galay aan ku hadlay. marka soonku waa ka reebtoomid, marka tarki weeye. cibaadaatu tarkiya waa waxyaalaha laga tago. ujeedka laga leeyahay ama waxa weeye in uu qofku ka tago waxyaalaha ilaahay uu ka reebay oo dhan inuu ka tago, oo ay muqadimo u tahay u horeyso waxyaalihii mubaaxaadka ahaa ee kuu bannaanaa ayaa la yidhi ka tag, xikam ilaahay ku jira awgeed ayaa la yidhi oga tag. marka soonka sidaas ayuu wuxuu u yahay lagu tilmaamaa inuu yahay waa cibaada oo fardi ah haddana jamaaci ah. sina fardi way ku tahayoo qofka iyo isaga iyo ilaahay baa is-og, marka oo qof kale oo ka warqaba ma jiro. walidaalika sidaas ayaa yacni cibaadaadka kale ay dhici kartaa inuu riyaa uu soo galo sida culimmada ay yidhaahdaan, laakiin soonka inaad sooman tahay iyo in waxyaalaha aad ka reebtoomayso adiga unbaa og oo khaasati nafsika adigaa og. marka taasay mataqaanaa waxay u tahay cibaadaad tarki ah, haddana fii nafsi lwaqtina ah wax oo qofka fardiga ah. waxay kaloo tahay waa cibaado oo haddana si jamaaci ku noqonaysa. jamaaciga ay noqonaysa ma aha waxaa weeye soonkii awal qof iyo wakhtigu doono uu soomi karo, oo soonku waxaa jira sunan badan oo soon badan oo sunan ah oo sunno ah, oo qofka maalinta khamiista, isniinta, yowm alcaashuraa inuu soomo, yacni yowm alcarafa inuu soomo. waxyaalaha nusuus fara badan baa ku soo aroortay. taa marka waxaa dhici karta waa wax fardi ah uu qofku hadduu rabo xataa maalin inuu soomo, maalinna afuro. siyaama daa'uud uu nabiga calayhi salaatu wasalaam uu ku tilmaamay oo afdalu siyaamka ah, intaba waa fardi. laakiin in bulshadii oo dhan, mujtamaca oo dhan oo la yidhaahdo sooma oo wada sooma, oo la leeyahay kutiba calaykum asiyaam, waa laydinku farad yeelay, oo bishaas ramadaan oo hadday soo gasho siduu nabiga calayhi salaatu wasalaam yacni in la soomo in la yidhi, oo dhammaan la wada soomayo, oo muslimiinta meel walbo joogaan mashaariq alard wa maqaaribiha in la soomo, iyadana sidaas waa jamaaci. marka oo waa madaahir, waa shacaa'ir islaam oo si jamaaciya loo muujinayo, oo ay markaas xikam fara badan iyo waxyaalo fara badan ay ka dhacayaan. marka waxaa la odhan karaa waa madarasa sanawiya, waa madaraso sanadkii ah oo tababar ah, oo lagu tababarayo qofka naftiisa uu ku tababarayo, mujtamacana ay ku tababaranayaan sida ay ilaahay ugu dhowaan lahaayeen
oo lacallakum tattaquun taqwadii iyo irtiqaagii ruuxiga ruuxdooda inay kor u qaadaan oo ilaahay ay ku xirmaan oo caadaadkii sayi'a iska dhaafaan caadaad wanaagsan oo ilaahay alla ka cabsina ay kasbadaan oo sanad kastaba ay arrintaas ay soo noqnoqoto ayay u tahay saasuu nebiga calayhi salaatu wasalaam wuxuu u leeyahay ramadaanu ilaa ramadaan ilaa ramadaan laga gaaro kafaaratan limaa baynahumaa sida uu sheegay jumcada ilaa jumca iyo sidaasoo kale loo yidhi iyo cumrada ilaa cumrada ayaa si gaaro nebiga wuxuu isagana ku sheegay ramadaanka laga gaaro ilaa ramadaanka kale waxay u tahay kafaaro oo dunuubtii oo dhan ayaa lagu dhaafaa dunuubtii oo dhanaa lagu dhaafaa marka qiimahaasuu ramadaanku leeyahay calaa mustawa alfardi qof ahaan kolka loo fiiriyana waa meel uu isku tahirayo waa meel uu naftiisii muxaasabo cusub iyo cusboonaysiin uu samaynayo naftiisa uu cusboonaysiinayo bulshadiina dhammaantood ay wada gelayso waxaa la yidhahda waxay gelaysaa tababar guud oo dadka la tababarayo ayay noqonayaan waxaa la rabaa marka mujtamaca muslimka ah ee ramadaanka ka hor iyo ramadaanka kadib inay kala duwanaadaan qofkana saasoo kale ramadaanka ka hor iyo ramadaanka kadib inay kala duwanaadaan xadiid buu nebiga calayhi salaatu wasalaam riwaayado badan baa ku soo arooray ayuu waxa uu ku leeyahay isaga oo mimbarka fuulaya maalin maalmaha ka mid ah ayuu yidhi aamiin 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 saxaabada rasuulillaahi way maqleen waxay yihi yaa rasuul allah hadaayey 3 jeer baad aamiin tiri maxaa dhacay marka wuxuu yidhi jibriil baa ii yimi marka waxaan yidhi waxa raqma anfal mar qofka sankiisa ha duloobo ama ha dhul dhaco oo ha khasaaro wuu khasaaray qofkii dakhala calayhi ramadaan falam yukfar lahu oo ramadaan uu u soo galay oo aanan loo dembi dhaafin yacni raqma anfi baa ku dhacay oo waxa weeye dhulka sankiisa dhul dhacay macnaha waa tacbiir oo loo isticmaalo wuu khasaaray oo wuu hoogay wax uu mataqaanaa u hayo marka saddexda arrimood uu sheegay waxaa ahayd iyo qof agtaada magacaaga lagu sheegay oo aan kugu sallin isagana yacni sankiisa wuu duloobay wuu khasaaray iyo qof oo mataqaanaa waalidkiisii labadooda ama midkood uu ilaahay soo haleeshiiyey oo markaas aan ka kasban yacni biri iyo wax uu camal uu janno uu ku galo bacd riwaayaadna naarta allah ku fogeeyo in la leeyahay intaas waxay ku tusaysaa waa mawsim weyn oo u baahan in camal aad janno ku gasho aad ka kasbato saa darteed saxaabada rasuulillaahi ama culimmada waxay oran jireen waxaa lagu aqoon jiray ramadaanka in la aqbalay waxaa lagu aqoon jiray wixii ka dambeeya haddii bilaha ka dambeeya qofka suluugiisu isbedelo haddii dhaqankiisa iyo habdhaqankiisi uu noqdo habdhaqan wanaagsan kana kasbado dabeecad ama cibaado ama alla ku dhowaansho uusan hore u lahayn soonkaasi waa soon yacni maqbuulah ayaa lagu ogaadaa marka saasayna ilaahay u bari jireen ilaahu soonna gaarsii oo bilaha ka horeeya bilaha ka dambeeyana oran jireen ilaahow naga aqbal marka tidaas ayaa ugu muhiima marka waxaan jeclahay inaan intaa ku ekeeyo aquuli qawli hada wa astaghfirullah li wa lakum assalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatuh